kulanti wacan wanaagsan daawadayaal halkan waa warsan news waxaad kusoo dhawaataan wararkii ugu dambeysay Soomaalida iyo caalamka qaybtan waxaynu ku eegi doonaa madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan oo ka hadlay arrin taabanaysa qadiyadda Somaliland Ethiopia ayuuna fariin culus gacanta ugu shubay ee la xiriira inaysan aqoonsan karin Somaliland macluumaad dhameystiran kulankii dhexmaray Abiy Ahmed iyo Erdogan ayaan halkan kugula wadaagi doonaa waxa kale oo aan qaybtan kula wadaagi doonaa oo aad nala daawan doontaan saaxiibadeena qiimaha badan oo dawladda federaalka ah ee Soomaaliya oo shaacisay in Imaaraadka Carabta ay qaadeen tallaabo saameyn weyn dhalin karta maxay tahay tallaabadan maxayse uga dhigan tahay xogo iyo macluumaad dhameystiran ayaan halkan kugula wadaagay qodobadaas iyo wixii kale oo dheeri ah inagu soo kordhay intaynu ku guda jirno baahinteena ayaan halkan kugula wadaagi doonaa soo dhawaada saaxiibayaal lamaantiina muuqaalkan share gareeya la wadaaga saaxiibadeena si ay idila daawadaan aragtidiina qaybta faallada ama commentiga kaga soo dhiibta xagaag aan ku bilaabo madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa ka hadlay arrin xasaasi ah oo taabanaysa qadiyadda Somaliland wuxuu fariin uu siday gacmaha ugu shubay Abiy Ahmed oo uu ku sifeeyay in uu ku foogan yahay aqoonsiga Somaliland fariintan waxay isugu jirtay digniin iyo hanjabaad si toos ah lala wadaagayo ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa fariin adag u diray dawladaha gobolka iyo guud ahaan kuwa caalamka isagoo ka digay in geeska Afrika uu noqdo fagaare ay ku loolamaan quwadaha shisheeye ee caalamiga ah shir jiraayid oo wadajir ay u wada qabteen isaga iyo ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed oo uu booqasho rasmi ah ku tagay madaxweynaha Turkiga maalintii shalay ahayd magaalada Addis Ababa ayuu Erdogan tilmaamay aqoonsiga Israel ee ay siisay Somaliland inay tahay mid aan waxba dan ah ugu jirin Soomaaliya iyo guud ahaan dalalka dhaca gobolka geeska Afrika uu ku tilmaamay inay wajihi doonaan khatar xooggan oo dhinaca ammaanka ah hogaamiyaha Turkiga ayaa ugu baaqay dalalka gobolka inay la yimaadaan sida uu hadalka uu u dhigay in ay la yimaadaan xalal looga gudbi karo caqabadaha haysta sida uu hadalka u dhigay halka uu shaaca ka qaaday in faragelinta shisheeye ay sii hurayso oo marba marka ka dambeysa ay sii kordhiso sidoo hadalka u dhigay Erdogan ayaa diiradda saaray doorka dawladdiisu ee dhexdhexaadinta Ethiopia iyo Soomaaliya iyadoo oo la raacayo hanaanka Ankara waxa uuna u mahadceliyay labada dhinac sida ay wax ku oolka ah ee ay uga qayb qaateen wada hadaladii tooska ahayd ee u furmay Ethiopia iyo sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya marka xasilooni la helo ma aragno wax caqabad ah oo hortaagan in geeska Afrika uu gaaro maqaam soo jiita hindhaha caalamka marka laga eego fursadaha dhaqaale ee ka jira ayuu yiri Erdogan waxa uu dib u xaqiijiyay in Turkiga ay ka go'an tahay ilaalinta madaxbanaanida iyo midnimada dhuleed ee dalalka gobolka isagoo oo si gaar ah diiradda u saaray isla markaana bayaamiyay inaysan ka gorgortami doonin inay ilaaliyaan madaxbanaanida Soomaaliya uu ku sifeeyay inay tahay dal ay heshiis toos ah oo dhinaca difaaca uu ka dhaxayo Erdogan ayaa u muujiyay sida ay kaga go'an tahay in Turkiga ay u taageeraan Soomaaliya wuxuuna Abiy Ahmed uu la wadaagay fariin ku qotanta in uusan qaadin tallaabo kasta oo waxyeeleyn karta xiriirka tooska ah ee Soomaaliya kala dhaxaysa oo uu u aragto Ankara inay ka mid tahay in waxa loogu yeero aqoonsi ay Ethiopia ku dhiirato inay siiso Somaliland iyadoo oo raacaysa danaheeda siyaasadeed ee ku qotama dhinaca helidda marinbiyood oo ay Ethiopia muhiimad gaar ah ay siinayso halka Somaliland ayana ay doonayso inay hesho aqoonsi caalami ah ay u qaadi karto tallaabadan oo ah inay bixiso qayb ka mid ah biyaha Soomaaliya waxaase jirta in heshiiska MOU-ga ee ay wada gaareen Abiy Ahmed iyo Muuse Biixi Cabdi fashil iyo wajigabax uu ku soo ilaaday oo aysan jirin meel lagu xaqiijiyo inay sii socdaan heshiiskaasi waxaase jirta in barihiisa bulshada uu ka saaray ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed dhawaanse waxaa jirtay inuu iclaamiyay inuu dib u furi doonaan arrintan heshiiska MOU-ga madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Cirro
Erdogan wuxuu sheegay in fariintan ay tahay mid muhiimad gaar ah xambaarsan oo ay dani ugu jirto guud ahaan dalalka dhaca gobolka Geeska Afrika, isla markaana ay tahay in ay si toos ah u ilaaliyaan nidaamka iyo qawaaniinta caalamiga ah. Waxayna u muuqataa in tallaabada Erdogan uu si toos ah ugu weerarayo waxa loogu yeeray aqoonsiga ee Somaliland dunida ka baadigoobeysay 34 sane ee ina weedaartay. waxaa kaloo muuqanaya in madaxweynaha dalka Turkiga uu doonayo in isballaarintiisa Geeska Afrika uu sii xoojiyo isagoo oo loolan adag kula jira dowladaha shisheeye una arka inay khatar xoogan ku yihiin danaha Soomaalida iyo sidoo kale Turkiga uu sheegay inaysan marnaba ka shaqeynayn. wuxuu u muuqanaysaa in Erdogan dagaal culus oo weyn uu ka iclaamiyay Addis Ababa kana dhan ah Israel iyo Somaliland, taas oo soo afjari karta sida macluumaad soo baxay ay sheegayaan rajada ay Israel ka qabto inay ku sii baahdo dhulalka deegaanada Somaliland inay saldhigyo xoogan ay ka samaysato. Ethiopia iyo sidoo kale Turkiga ayaa ku ballamay inay xiriir dhow yeeshaan, iskaashi midaysan ayna si toos ah uga wada shaqeyn doonaan danaha labada dhinac, isla markaana isku tashi ku salaysan wadajir iyo in caqabadaha jira loo wajaho si aan ka gambasho lahayn oo hagarasho lahayn oo aan gacanta dib la marsanaynin oo si toos ah dhinacyadan ay ugu heshiiyeen. waxaana jirta booqashada Rajab Tayyip Erdogan inay qayb ka tahay sare u qaadida xiriirka saaxiibadnimada ee uu la leeyahay dalalka Geeska Afrika oo uu socdaal toos ah ugu tagayo. waxaana Abiy Ahmed uu u hadiyeeyay gaari nooca Turkida dhawaan ay soo saartay, isla markaana ay si toos ah ugu wareejiyeen ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed oo ay si toos ah qalinka ugu wada duugeen heshiisyo wax ku ool ah oo dhinacyadan danwadaagta ah. ma jirto war rasmi ah oo arintan ay uga falcelinayaan Israel iyo Somaliland oo ay ka soo saareen dhaqdhaqaaqan lidiga ku ah xiriirkooda tooska ah u bilowday tan iyo bishii December sanadkii hore ee 2025 waxaa jira cadaadisyo gudaha iyo mid dibadda ah oo uu wajahayo xiriirka tooska ah ee ay wada sameysteen Somaliland iyo Israel ee ka dhashay waxa loogu yeeray aqoonsiga ay Israel siisay Somaliland. waxaana jirta in dalalka caalamka si midaysan ay uga soo horjeesteen tallaabadaasi, waxaana ay soo dadejisay in Somaliland ay durbo wajahdo go'doomin dhaqaale oo ay ka wajahayso saaxiibada Soomaaliya oo ay heshiis toos ah kula saxiixdeen in hoos loo dhigo awoodda dhaqdhaqaaq ee dhaqaale ee Somaliland, sida Sacuudiga oo guud ahaanba joojiyay xoolihii uu ka dhoofsanayay dekada weyn ee magaalada Berbera, tani oo dhaawac xoogan u geysatay dhaqaalihii iyo kaabayaashii dhaqaale ee deegaanada Somaliland. markan haddii aynu eegnana dowladda federaalka Soomaaliya waxay shaacisay in Imaaraadka ay qaadeen tallaabo saameyn weyn dhalisay, waxayna u muuqataa in Imaaraadka Carabta caradii siyaasadeed iyo midii diblomaasiyadeed ay qabeen ay kala duldhaceen go'aankan ama tallaabadan ay iminkan qaadeen. dowladda federaalka Soomaaliya waxay shaacisay in dowladda Imaaraadka Carabta ay si rasmi ah u joojisay taageeradii dhinaca amniga ah ee siin jirtay Soomaaliya. tallaabadan oo ka dhalatay go'aankii xukuumadda Muqdisho ay uga baxday heshiisyadii iskaashi ee labada dhinac ee u dhaxeeyay. wasiirka arrimaha dibadda ah ee Soomaaliya Cabdisalaan Cabdi Cali Dhaay oo la hadlay warbaahinta ayaa xaqiijiyay in kaalmada Imaaraadka Carabta ay u badneed mid lagu xoojinayo hay'adaha militariga iyo amniga ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. inta badan taageerada Imaaraadka bixin jiray waxa ay ku qotontay dhanka amniga, maadaama heshiisyadii la burburay ma jirto sabab sharci ah oo ay taageeradaasi ku sii socon karto amaba ay ku sii wadi karto Imaaraadka Carabta, ayuu yiri wasiir Dhaay. arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo bishii Janaayo ee sanadkan ay dowladda federaalka Soomaaliya ku dhawaaqday inay burisay dhammaan heshiisyadii ay la gashay isutaga Imaaraadka Carabta oo ay ku jiraan kuwii dhanka iskaashiga amni ee ka dhaxeeyay labada dowladood. dowladda ayaa xilligaasi ku eedeysay Abu Dhabi inay faragelin ku hayso arrimaha gudaha, isla markaana ay wiiqayso madax banaanida midnimada dhuleed ee Soomaaliya, waxaana jiray hubanti ah in ay fududeysay aqoonsiga Israel ay siisay maamulka Somaliland.
inkastoo la hakiyey taageeradii amni, wasiir Cabdisalaan ayaa caddeeyey in xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal uusan go'in, wuxuuna tilmaamay in safaaradda Soomaaliya ee Abu Dhabi iyo howlgalka Imaaraadka ee Muqdisho si caadi ah ay u shaqeynayaan, taas oo muujinaysa in xiriirka guud uu weli u taagan yahay aysan meesha ka bixin. Ugu dambeyntii, wasiirka ayaa beeniyey warar sheegaya in go'aanka Muqdisho uu xiriir la leeyahay eedeymaha caalamiga ah ee loo jeediyay Imaaraadka Carabta ee ku aadan taageerada kooxaha hubeysan ee colaadaha ka wada Suudaan iyo Yemen. Waxa uu ku adkaystay in tallaabadan ay salka ku hayso oo kaliya arrimaha laba geesoodka ah ee u dhexeeya Soomaaliya iyo isutaga Imaaraadka Carabta. Imaaraadka Carabta ayaa sanadkii ugu dambeeyay caqabad weyn ku noqday midnimada dhuleed iyo madax-bannaanida Soomaaliya, isaga oo taageero maamul ciidan ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo sidoo kale dalalka shisheeyaba u qeybinayay. waad ku mahadsantihiin ilaa gunaanadka muuqaalkan haddii aad nala soo gaarteen saaxiibadeena qiimaha badan oo waxaan idinkaga tegayaa warsan iyo nabadgelyo.